وما أرسلنا naxariistaasaan u baahannahay maanta islaamnimadu inay naga noqoto dhaqan ujeeddo kale maaha waxa lainoogu yeedhay nimanka akhyaarta ee nagu dadaalay ee kulanka inii qabtay ee culimmadana meelo badan uga yeedhay ku soo casuumay inay nila hadlaan wallaahi ujeeddo kale ma leh waxay leeyihiin keliya sidee diintani ay nolosheenna u timaadaa bas السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني ما شاء الله إلهي ما كو حمدنا مر والبع نعم فربضان بإلهي دوشنا ودقي نعمت إلهي نسيي نعمة أقويني والهداية وحنونك ويان إن إلهي كو حنونيو وطريق حق إلهي أوكو مريو وقف مسلمة أو قمان أو توصن إلهي أوكاردقو نعمت أدونك دوشيدا إنت اللي جوغا إلهي أوبحيو ونعمة أقوين ويان inay nicmadaasi nicamta ugu weyn tahayna waxaa caddaynaysa salaada markaan tukanayno keena faqiirka keena qaniga keena lab iyo keena dhidig keena madaxa iyo keena mijaha su-aasha keliya ee salaada dhexdeeda qofka loo ogol yahay ilaahay inuu ku weydiisto waa su-aal waliba ku soo aroortay suuradda faatixada dhexdeeda suuradda faatixaduna waxa weeyaan waa ruknu min arkaani الsalaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa laa salaata liman lam yaqra' biummi اlqur'aan suuraddaas suuratu lfaatixa qofka aanan akhrisan buu nebigu yihi salaad ma leh oo salaad uma ahaanin salaadaas markaa suuraddaasi iyada magaceega dhan baaba salaaya su-aasha keliya ee ku soo aroortay waxa weeyaan markaan suuradda aan akhrisanayno waa ihdina الsiraaط almustaqiim ilaahu dariiqa mustaqiimkaaga ilaahu nagu toosiyo na mari taasaa markaa caddaynaysa in shayga ugu qiimo badanee ilaahay bini aadanka adduunka dusheeda uu ku siiyey inay tahay alhidaaya hidaayaduna wax kale maahayn waxa weeyaan waa hanuun oo ilaahay caza wajalla ayaa mulkiyo oo ilaahay baa haya hanuunkaas qofka ilaahay khayr uu la rabaa ilaahay nuurkaana qalbigiisa uu yeelaa hanuunka ilaahay baa bixiya xataa malaa'igtu ma bixin karto nebiyaduna ma bixin karaan oo nebi haddii uu milkiyey hidaayaduu nebi bixinayo nebi nuux calayhi salaam inankiisa iyo xaaskiisa ayuu siin lahaa nebi ibraahimna aabbihii buu siin lahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna adeerkii abaa aalib buu siin lahaa laakiin hidaayaddaasi waa hidaayatu tawfiiq ilaahay baa hayo ilaahay baa mulkiya oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam adeerkii abaa aalib oo nebigeenna soo gacan hayay oo soo koriyey oo korsiinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qayb weyn ku lahaa markuu bukooday ee xanuunku uu riday ayuu nebigu ziyaarto uu u galay waxa uga sii horreeyo oo la joogay markaa abujahal calayhi lacna deedna markaa buu nebigu dhinac buu ka fadhiisto wuxuu ku yidhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama
adeer waxaad ii tidhaahdaa hal mar keliya aniga imaqashii oo waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh maalinka qiyaamahan aniguna maaragtaane kuu dacwin doonaaye oo ilaahay caza wajalla hortiisa ayaan ka marag furi doonaa inaad adduunka dusheeda kelmadda aad ku soo tidhi lianna nebigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waa kii nebigu lahaa malag baa ii yimid oo igu yidhi laba mid kala dooro ayaa ilaahay ku leeyahay inay ummaddaadu kala badh ay jannada gasho iyo in shafaacadda lagu siiyo deedna nebigu waa kii lahaa shafaacadda ayaan qaatay oo shafaacaddaydu waxay gaadhi doontaa qof allihii qofkii adduunka dusheeda ku soo ashahaatee laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah sala allahu calayh wasalam ee islaamnimada soo galay waxaan u helayaa buu nebigu leeyahay qiil aan qiyaamaha ugu dacwin karo taabuu markaa nebigu adeerkii abu aalib uu ku lahaa kelmadda aniga hal mar keliya imaqashii maalinka qiyaamahan kuu shafeecad qaadi doonaaye deedna nebigeena sala allahu calayh wasalam adeerkii waxaa ag fadhiyay abujahal calayhi lacna fircawna haadihi lumma ayaa markaa ku yidhi abaa aalibow ma diintii aabbayaasha aad ka dhaxashay ee milladii cabdulmutalib intood ka leexata maad moxamed maanta warkiisa aad qaadanaysaa deedna markaasuu iska aamusay abu aalib haa iyo maya midna ma odhan deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana uu soo jeediyo wuxuu ku yidhi kalimatan uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama hal mar adeer aniga kelmaddaa imaqashii maalinka qiyaamahaan ku shafeecad qaade hadalkii u dambaysay abaa aalib uu ku hadlay wuxuu ahaa inuu yidhaahdo calaa millati cabdilmutalib baan ku dhintay moxamedow aniga iska kaydaa deedna naftiina way ka dhacday labadaa indhood isagoo nebiga ilintu ay ka daadanaysa buu nebigu ka kacay halkaas maxaa yeelay adeerkii u jeclaa nebigu kursiintiisa iyo maaragtaane ilaalintiisa iyo racaayadiisa qayb xoogle ayuu markaa abu aalib uu ka soo qaatay khayrkuu nebigu la jeclaa oo hidaayadda iyo naxariista ayuu la jeclaa laakiin hidaayadda nebi maxamed ma hayo ilaahay baa ku yidhi innaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin kaad adigu aad jeclaata ma soo hadaynaysid baa nebiga lagu yidhi waa hidaayadda tawfiiqda waafajinta ilaahay baa iska leh ka aan doonna annaka hadaynayna baa ilaahay yidhi caza wajal kuwa hanuunayana annaka naqaana baa ilaahay nebigiisa uu ku yidhi marka hidaayaddaas ilaahay baa milkiyey cid kale ma hayso oo dee nebi maxamed hadduu milkin lahaa hidaayadda bilaalow xabashiya hidaayadda ma heleene abaa aalib oo qurayshiya buu nebigu hadayn lahaa abulahab oo qurayshiyo nebiga adeerkiya buu nebigu hadayn lahaa hidaayadda haddii ay cid milkinayso een maaragtaane dee nebi ibraahim calayhi salaam aabbihii gaalnimo kuma dhinteene bal hidaayadduu ku deeqi lahaa uu siin lahaa marka hidaayadda ilaahay baa haya caza wajalla kuu doonana ilaahay isagaa hanuuniya kuu doonana ilaahay tabaaraka wa tacaala isagaa baadiyeeya oo lumiya muuse binu cimraan waa nebi muuse calayhi salaam oo 30 sannadood aqalka fircoon ku barbaaray oo ku korayna ilaahay uu hanuuniyo waxa uu ka dhigay nebi rasuulah oo la yidhi waliba wakallama allaahu muusa takliima waa nebiga keliya adduunka dusheeda ilaahay caza wajalla hadalkiisa ku maqlay buu ahaa nebi muuse calayhi salaam nebi muuse oo aqalka fircoon ku barbaaray ka hanuuniyey ee risaaladda u doortay inuu nebi rasuula uu noqdona waa allaahu rabbulcaalamiin weeyaan waxaa kaloo hidaayadda aanan nasiib u helin ninkii la odhan jiray saamiriy muuse binu dafar baa isagana la odhan jiray buu yidhi ibnu cabbaas waa ninka reer bani israa'iil ahaayee malakuljibriil suuraddiisii malakiga intuu ku arkay haddana ilaahayna rumayni waayey rasuulkii loo soo dirayna raaci waayeyna kaana hadday ay noqonayso hidaayaddu in qof uu hadeeyo aragtida jibriil uu ku hanuuni lahaa limaada jibriil waa malak ilaahay baa tabaaraka wa tacaala qaamad iyo quwad iyo taaqad ku abuuro siiyey ninka malagaa arkayna ilaahay hidaayadda kumuu deeqine ilaahay hidaayadda waxa uu ku deeqay ninkii guriga fircoon ku barbaaray ayaa ilaahay hidaayadda ku galladaystay marka hanuunka ilaahay baa bixiya innaka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa inoo nicmeeyey oo hanuun baa ilaahayna siiyey laba xaas oo qur-aanka lagu sheegay daraba allaahu maalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والله بقي سوء عجيبة في سورة التحريم بيكوتها لأواخر كده. والله بقي سوء عبر قادة الشله أولا ربعنا كو عبر قادة تد أود إسلام ماذا يهداية إلهي كو ديقو كسيي أدو آنو ويديسن با إلهي قف مسلم إلهي وكادقه وإن النعمة إلهي تبارك وتعالى آنو قم هذنا أون قدرنا. والله بحاس لبضوا باللبن النبي بكوهس نولايين مدوا زوجة نوح عليه السلام منوا زوجة اللوط عليه السلام لبدا النبي حاسس كودينا إلهي هداية البلابدي دي وأكحدي قال لما أي كلن نولايين يكو قال لما دا قرسنايا أي هوستا قال لما كو قرسنايين النبي يدن وي خائمين وين خيانيين نارتا كواريا وندبا إلهي لكو نارتا كواريي ayaad ma oogatihiina naarta la galaba kuwa ku nidhiba ilaahay yiri halka la yiri taaqiya fir'aun oo garanaysaan oo quraanka lagaga waramay oo 26 juz oo quraanka ilaahay ku taala ayaa nabi Muuse calayhi salaam iyo fir'aun wixii dhaxmar lagu soo celceliyay fir'aun oo kibirkiisa iyo qooqiisa ilaahay quraanka uu noogaga waramay fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la ninka dadka intuu u yeedho fagaaraha soo joojiyay ku yiri rabbigii koreeyay sareeyay waa aniga aqalka ninkaasi uu ku dhex nool yahay gabadhii ku nooleeyna ilaahay azza wa jalla hidaayada ilaahay ku galladaystay oo ilaahay islaamnimadu qalbigeeda ku sharxay waata ku ducaysanaysa eele rabbi ibn li indaka baytan fil jannah ilaahu aniga guri agtaada iiga dhismay ku tiri agtaada hatta ma qalat anbiyada agtooda iiga dhismay orana waxay tiri إلهه وحرب جنة إن أكتاد أقل أنك أديك الدستا وكي النبي لها عليه الصلاة والسلام إذا سألتموه فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تتفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن حداد إلهي ويدي سنيسان ومر بإلهي أدبر يسام النبي عليه الصلاة والسلام جنة فردوس الليلة إلهي ويديستا maxaa yeelay jannooyinka ayada ayaa ugu sarreysa ayadaana ugu dhaxayso waa bartamaha ku toosan tahay arshiga rahmaanka ayaa saqfigeeda ah wabiyalka jannada maro oo dhan ayada ka bilaamaana ka burqamaan buu nabigu yiri gabadha ilaahay waxay weydiisatay rabbi ibn li indaka baytan fil jannah tarabbat fi bayti fir'aun wa 'ashat fi bayti fir'aun wa ra'at tuqyana fir'aun kibirki fir'aun bay u soo jeeday arkaysay mujtamac ay ku dhex barbaartay waa mujtamac ninka haysta uu leeyahay aniga ayaa rabbiya ma calimtu lakum min ilaahin ghayri ilaah aniga aan ahayn oo kale oo ogahay oo ni ogahay ma jirtee aniga ilaahay i caabuda shakhsiga sidaa leh gabadha guriga ninka uu degan yahay ku barbaartay ilaahay azza wa jalla qalbigeeda waxa uu ku sharxay ilaahay jiritaankiisu inuu yahay xaq nabi Muuse calayhi salaam رسالتيسو حق إنay tahay ba qalbigeeda lagu sharxay waxayna ku ducaysanaysaa ay leedahay rabbi ibn li indaka baytan fil jannah ilaahu aniga waxaan ku weydiisanayaa agtaada guri ilaahu iiga dhis wanajini min fir'auna wa 'amalihi fir'auna ilaahu iga foge amalkiisana ilaahu iga dheere gaalka ilaahu aniga iga dheere gaalada acmaashoodan ilaahu iga dheere gaalku uu ku taasiirin uu ku saameyn مجتمع ويس سامعيان هذا المجتمع مسلم آل هيستو وحكى لها كوبا دلنا وجو إسلام ماذا كو خير بدن مجتمع مسلم كي أشهادنا يا ولو دين تودو بهالنقطة دين ضعيفة هالنقطة لكن قال إن تكون نحن ولا مسلم قد كو أجن ولا تو هبا كو أجا جوتي دي هبا كو أجرفات دي مسلم كأشهادنا يا مرنا قال لما أنا لو جبغين إنه قالوا بو إن تكون أجن ولا تا يا كو خير بدن لذلك قبضها وحي لا هي فرعون كليه يقفوقه ملا وحي لا هي عمل كيسن إله يقفوقه ونجني من القوم الظالمين قوم كاسنا والظالمين إله إياك يقدر بيتي إلهي تبارك وتعالى وقادر على كل شيء وصدو دون يلا وإلهي أسماء إلهي وحاكمه الهادي هنونية وإلهي عز وجل إله عز وجل موسى السامري موسى السامريين إلهي هداية ومقدرين وانك جبريل أركي موسى بن عمران وقصر فرعون كورينا إلهي عز وجل أوهنون يوم مؤمن
nebi rasuuloo kaliimullah baa laga dhigay labadii haween ee nebi nuux iyo nebi luud ay kala qabeen ee laba nebi hoostooda ku barbaartayna albaabka hidaayadda looma furin tii qasriga fircoon ku barbaartayna aasiyatu bintu masaaxim weliba waxaa nebiga loo bishaareeyey inay noqonayso xaasaska nebi maxamed jannada loogu dhisi doona ka mid noqonaysa ilaahay hidaayadda isagaa bixiya innaka ilaahay waa inoo nicmeeyey dadkan khaasatan afka luqadan soomaaliga ee ku hadlayo fahmaya ee ku hadlow si gaara ilaahay ugu xamdino muslimiin baa ilaahay naga dhigay aabbayaasheen muslim walaalaheen muslim awowyaasheen muslim ajdaaddeennu muslim ciddaad ka soo jeedda waa muslim saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nicamta khaaska innaka inoo khaaska wallaahi iyaku maynan helin saxaabada rasuulka siiradooda markii loo noqday isagii hadduu muslim noqdo aabbihii gaalnimadu ku sugnaa khaalid binu saciid baa ka mid ah saxaabiga loodhan jiray allaha raalli ka noqde khaalid ibnu saciid wuxuu ku manaamay asbaabta uu ku islaamay waxaa ka mid ahayd isaga oo wuxuu ku manaamay aabbihii oo naar ku dhex jira oo inankiisana soo qaadanaya oo soo jiidaya oo naarta ku soo tuuraya uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna halkaa guntiga uu ka hayo daedna markaasaan hurdadii ka kacay buu yidhi argagax abubakar sidiiq baan u sheegoon ku yidhi abubakarow maxamed adigaa rumeeyo raacee bal manaamkan aan arkay ii cabir baan ku yidhi buu yidhi markaa ii cabir riyada wanaagsanaad ku riyootaa dadka khayrka aad ku tuhmaysaa loo sheegaa waa waxay kugu cabbiraan laakiin waxaa la yidhahdo xulumka hawaawiga ee naxdinta badanla lama sheego waa sunnadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam daedna saxaabigaasi u ordo wuxuu u sheegay abubakar sidiiq baa ku yidhi manaamka aad aragtay waa xaq aabbahaa naar buu ku dhacayaayoo gaalnimadaa uu ku jiro kufriga iyo shirkigaabuu ku dhimanayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna diintan uu inoola yimid ee waa diin inagu leh naarta ha ka badbaadaane aniga isoo raac buu nebiguna leeyahay wa ana aakhuduhum bixujazikum min annaar wa antum tufallituuna min yadaya anigoona guntigaasaan iniga hayaa halkaa dhexirka ayaan ini hayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam si aad naarta ugu dhicin baan iniga xajinayaa iniguna waad iska kay gundhanaysaan oo naartaad ku hoobanaysaan buu rasuulku yidhi daedna riyadii markuu u sheegay buu yidhi wallaahi manaamkaa lagu tusay waa xaq aabbahaa naar buu ku dambayni doonaa naar buuna ku dhici doonaa gaalnimuu ku dhimanayaa adigana nebi maxamed uu kuu gurmanayaaye han kuu geeya kaalay oo iska soo islaam oo nebi maxamed ku dayay buu yidhi raac waa hagaag uu soo kaxeeyey daedna markaa buu nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam khaalid ibnu saciid markaa nebiga hortiisuu ku islaamay aabbihii baa maqlay markaa saciid binulcaas baa maqlay in inankiisii uu diinta muxamed u galay waa makaa la joogaa dadka muslimiintu waa fara ku tiris weeyaan qof alihii qofkii muslimee islaamnimada ilaahay ku galladaysto markaaba waa la cadaabayaayo waa la dhibayaa walaalihii buu u diru yidhi soo qabta waa la qabtay afarta addin baa laga xidhay biyihii baa laga dhabay baadkii baa loo diiday waxaa lagu qasbayaa inuu gaaloobuu ridoobo walaakiin isagu waxa uu leeyahay may laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam daedna marka uu kari waayey uu arkay ninkani inuu diinta islaamka uunan ka noqonaynin ayuu yidhi xarkaha ka sii daaya magaaladaa maka ha iska galo wejigiisa ha iga qariyo meelaan joogayuuna soo joogsan baadna siini mayno biyana waraabin mayno harraad iyo ooniya gaajaha u dhintee markii sidaa aabbihii uu ku yidhi ayuu yidhi aabba haddaad adigu quudkaad haysatay aad iga mancisatay aniga ilaahay baa ii quudinaya buu ka yidhi allah muslim jadiida oo shalay islaamay ayaa markaaba qalbigiisa yaqiintu ay ku dhibcaysaa oo ku leh hangaajoodo aabbahay han waayo walaalahay han waayo qaraabadayda han waayo waxay dhibaato isoo gaadha ha isoo gaadho laakiin mar haddaan muslim anu aan ahay islaamnimada waan ku qanacsanahay diinta islaamka igu filan oo ideeqi doonto weeyaan haa diinta islaamka ha kugu fillaato ayuhalmuslim ha eegin hunguriga nin muslima oo dadkeenna ayaa maalin maqlay inuu dhoofayo waddannadaa reer galbeedka marka ayuu rabaa inuu ubadkii reerkao dhan u qaado markaasaan salaamnay oo salaamu calaykum maa sha allah bal warranoo waxaa igu maqala inaad dhoofaysid markaasuu yidhi haa waan dhoofayaa xaggee tegi dhulkaas maxaa jira wuxuu idhi qaaradan afrika la idhahay oo layskuma hadlayn karo buu idhi nabadgelya ma taallo tacliin ma taallo
caafimaad ma yaallo shaqa ma taallo system ma shaqeeyo kolba ninka meesha haystoon baa dadka ku jooga marka wadannada horumaray ee nabadgelyadu ay taallo ee dhakhtarka iyo tacliinta fiican leh ayaan ciyaalka mustaqbalkooga la raadsanayaa buu yidhi u fiirso khaalid ibn saciidna eeg shaluu islaamay aabihii baa ku leh baadiye bii ku siin maayo markaasuu u jawaab uu leeyahay carabka maaha waxa jawaabaya waa caqiidada ayaa jawaabaysa iimaanka qalbigiisa ku jira jawaabayo ku leh aabba haddaad adigu baadkiiyo biyahaagii aad iga mancisatay aniga ilaahay baa iquudinaya oo isiinayay buu ku yidhi khaalid ibn saciid uu yimid nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam waa markuu nebigu joogay daartii arqam ibn alarqam halkaa buu nebigu xataa masaajidka xaramka looma ogolayn halkaa buu nebigu saxaabadiisa qur'aanka makiga maka ku soo degay ee aayaadka qur'aaniga makiga iimaaniyaadkii aakhirada ka warramaya iyo qisasul anbiyaa iyo wal umam as-saabiqa ayuu markaa nebigu dushooda ku akhriyaa iimaankooga ayaa markaa dhismaya yaqiintoodii caqiidadooda ayaa la dhisayaa u tarbiyadaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam deedna maalin maalmaha ka mid a wuxuu maqlay khaalid aabbaha waa sankaraad deedna markaa buu soo socday aabbihii oo sankaraada buu dul yimid odaygii dhalay markaa buu dul joogsaday odaygii baa sidaa u eegay ma khaalid baa ha aabba waa khaalid weeyaan diintii maxamed ma ka soo noqotay markaasuu yidhi may aabba may kama soo noqon kamana soo noqonayo mid iga qor buu ka yidhi mid iga qor haddii xanuunka aan ka kaca buu yidhi maanta ilaaha muxamed maka lagu caabudi maayo buu ku yidhi khaalid ibnu saciid uu maqlayaa hadalka gaalnimadu aabbihii uu ku manaamay inuu naar ku dhacayo qiblada intuu u jeestay ayuu yidhi samada intuu eego gacmaha cirka u taagay buu yidhi ilaahow aabbahay mowqifkiisa weli ma bedelina halkaasoo ma taagno ilaahow xanuunka ha ka kicin ilaahu ku qaad buu yidhi isagana u habaaray xanuunka inuuba ka kicinba ilaahu ku qaad ilaahay waa ku qaaday xanuunkii gaalnimadiisii jahannamuu la tegay walciyaadu billaah waxaan ka wadaa saxaabada rasuulka radia allaahu canhum islaamnimada hadduu saxaabigu muslim yahay isaguna ma aragtaane aabbihii iyo hooyadii iyo dadkiisu gaalnimada ku sugnaayeen abaa hurayra radia allaahu canhu markuu islaamay hooyadii oo da'ah gaalnimada weli baaqi ay ku sii tahay markaasuu abaa hurayra nebiga u yimaadaa calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebiga cilmiga ka bartaa haddana hooyadiibuu u tagaa uu u soo khidmeeyaa mar alli markuu u tagana dacwaddu u bandhigaayo risaaladdu u bandhigaa markaaba iska diidaayo tiraahdaa ila dhaaf diintaada anu ma rabi diintaadee maalin maalmaha ka mida abaa hurayra allaha raalli ka noqdee isagoo lilmadu ay ka yaacaysa buu nebiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam markaa buu nebigu ku yidhi yaa abaa hurayra waa maxay oohintan maanta maxaa ku elood la ooyeysaa ii sheeg wuxuu yidhi yaa rasuula allah hooyaday waa mushrikad oo gaalnimadiibay weli iyo shirkigiibay ku sugan tahay mar kastana waan u bandhigaa risaaladda iyo tawxiidka waan u bandhigaa way idiidi jirtay laakiin maanta hadal aan u adkaysan waayey bay igu tidhi buu yidhi oo hadalkaa waa maxay hadalkaa waliba adigay kaa tidhi adigay kuula jeeday hadal xun oo adiga aanan kuu qalmaynin ayay nebi allow adiga kugu tilmaamtay nebi baariya ayaa tahay oo barakaysane u ducee hooyaday ilaahay inuu ii soo hadeeyo markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu gacmaha cirka u taago wuxuu yidhi allaahumma hdi umma abi hurayrata abaa hurayrahan hooyadii ilaahow soo hadee abaa hurayre hooyadii ilaahow soo hadee deedna abaa hurayra radia allaahu canhu wuxuu yidhi anuu ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam bishaaraysan in la ii aqbalay ayaan orad isqaaday buu wase sii daayey deedna markaan shanqadhaydii markay maqashay ayay hadasho waxay tidhi ha ii soo gelina dibadda joog waan istaagay waxaan maqlay markaa biyahay ku maydhanaysay shanqadhoodii sawdkii markaasaan nidhi way maydhanaysaa maasha allah markaabay tidhi ii keen maradii baan u dhiibay soo gal shahaadateynka ii qaba bay ku tiri waan islaamayaaye u laqinay isagoo ooyaya buu nebigu u yimid sal alla alay wasalam oohintan iminka waa farxad maxaa dhacay abaa hurayrow yaa rasuula allah ducadaadii ilaahay waa aqbalayo hooyaday way soo islaamtay buu yidhi sidaasay saxaabadu ahaayeen laakiin innaka maanta ilaahay waa inoo nicmeeyey haddaan abtirsanno
labaatanka oday soddonka oday aad ku abtirsanaysid hal oday oo gaala laga heli maayo jadka jad waxaan dadkan ka soo jeeda wada muslimiin oo wada shahaadanayay oo qaarkood inagay naga tawxiid fiicnaayeen oo naga diin fiicnaayeen oo naga dhaqan fiicnaayeen oo naga dadnimo fiicnaayeen oo ducadooda ilaahay aqbalayay tabaaraka wa tacaala oo waxaad laga yaabaa inaad ka soo jeedid dad xalaal mirada oo dhaqan wanaagsan leh nin culimada muslimiinta kamida oo inuu yahay baan u maleynayaa masri ayaa tawaasul al-ijtimaacigan ban ka daawaday maalin lajnatu taxkiim wadannada Scandinavia wadan kamida ayuu musaabaqatu al-Qur'aan buu markaa ka qaadayay waxaa dhacday markaa wuxuu yidhi waxaan idhi Sweden ayaa ka socda yar Soomaaliya soo kacay buu yidhi waan yaab Australia ayaa ka socda oo quraanka musaabaqada uga qayb galaya waa Soomaali buu yidhi America ayaa ka socda waa Soomaali London ayaa ka socda UK waa Soomaali wuxuu yidhi ma garan kara buu yidhi xidhiidh baa jira buu yidhi xidhiidh waa hadalkan ku ta'athuray aad ay maartaan ay taabtay wuxuu yidhi maaha innika buu yidhi laga yaabaa aabbayaashiin dadkaad ka soo jeedaan laga yaabaa inay jirto sir iyo ka ilaahay u dhaxaysay waa waxa ilaahay quraanka inoogu ilaalsanayo weeyaan bifadli illaahi caza wajalla wa bikaramihi meelo badan oo adduunka aan maray oo safarro dacwadeed u maray masaajid kuma tukado ilaa imaamka salaada tujinaya waa Soomaali qaariga salaada tujinaya waa Soomaali marka nicmada ilaahay nagu galladaystay nicmata al-hidaaya nicmata al-iimaan wal islaam nicmadaas marka han qadarino oo ilaahay han ugu mahadino oo han ku shukrino oo nicmada dhulka ha dhigin ha dayicin meel kor u qaad waxa ugu qaalisan ilaahay adduunka dusheeda uu dadka u siiyo waa hidaayadii baan haysanaa marka nicmada ilaahayna siiyo waxaan u baahanahay inaan ilaalsano oo ku amal fallo oo ubadkeena barno oo inagu diinteena barano oo inagu diinteena ka shaqeyno waa saddexda diintu ay ku ilaalsantay waa saddexdaas al-ilmu wad-da'watu wal-amal al-ilmu wal-amalu wad-da'watu ilayhima علمك إن دين تدبرتا وفريضة على كل مسلم ومسلمة إن دين تقاننا أتكو عمل فشا وقيامها اللي يسوي دين دونا والقرآن حجة لك أو عليك قرآن كأي دين إلهي كسيي مالك قيامها أما حجوك كفر دونا أما أدوك قرآن حجك نغني دونا الصوم والقرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول القرآن منعته النوم في الليل فشفعني فيه ويقول الصوم ويقول الصيام منعته الطعام في النهار فشفعني فيه حديث معنه سوها النبي وكيلها لبا قيامها وشفاعات قاضيا لبو صومكنا وشفاعات قاضا قفك الصوم جري ووحو كورنا يا ربي أدونك دوشيدي مالنكي أيا شهودي سكربه إرجانه إله إرجدا يقبل بورنا يا إرجان وهاي قرآنكنا وحا وليهي habeenkii buu kici jiro akhrin jire ilaahu shafaacad ergaan u ahe ergada ay aqbal buu isaguna leeyahay quraankii marka hadda diintan ku amal fasho maalinka qiyaamaha diinta iyada ku shafaacad qaadin wad-da'watu ilayhima iyo in dadka muslimiintana barashada diinta loogu yeedho salaada loogu yeedho gabdhaha u yeedhaan asturka loogu yeedho dhaqanka wanaagsan loogu yeedho haddaad adigu daaci noqonood ummadda khayrka ugu yeedhin adigaa lagu yeedhin ad-da'watu ila allah fariidatu sharciyya wa daruuratu bashariyya waana min asbaab al-hidaayah wad'u ila rabbika innaka la ala hudan mustaqim nabi maxamed alayhi salatu wasalaam ba ilaahay kulaha dadka xagga rabbiga ugu yeedh haddaa dadka xagga rabbiga aad ugu yeedhaysid dariiqii mustaqiimka hanuunkii baad dul saaran tahay baa nebiga lagu yidhi dacwaddu markaad ummadda khayrka aad gaadhsiinaysid waa min asbaab alhidaaya waa asbaabta aad ku garan karaysid nicmadda ilaahay ku siiyey qadarkeega marka nicmadda ilaahayna siiyey islaamnimada han ku shukrino ilaahayna han ugu mahadnaqno meel kale indhaha u taagtaagin cizu dunya wal aakhirah haddaad doonto diintaada uneeg ibnu cabbaas
الله رالي كان نقضي سقي أبيبه وحويري عبادة إيه دينتني يا خير كإلهي نسيي هدو قفك كد دالو وإلهي حرير في عنو الله يشو وعبادة دي الصلاة دي سلقا أقبلو شن فوائد بأدونك دوشي دي إلهي كسيا نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق حداد عبادة هذا طاعة هذا دينتن إلهي كسيا رغنا كان نقطات كل رغنتو شنتا نعمضات بأدونك إلهي كقدر سينيا شنتا نعمضات نور في القلب قلبك إلهي نور كو قلنا يا نور وضياء في الوجه وجهي أنا إفتين باك بحا يا مر والبا قف بشاش وفرحات بدن بعد نقونيسا وبلا استرس أيام نقونيسا وقوة في البدن جلك أنا إلهي قوتي حوق بو قلنا يا وسعة في الرزق أرزاق هذا إلهي وقوة سعنا يا ومحبة في قلوب الخلق خلقك أنا جعيلا إلهي قلبك وذكو قلنا يا شنتا نعمضات لقو مهل العق لقو مهل أقوانتان أدوية مادقو لقو تلحتقو لقو مهل قبيالد لقو مهل منصب ابن عباس مفسر القرآن حبر هذه الأمة أياكو الشيخ يا كله هدي إلهي أذيقا حجير كي نقد حي هقاقا شنتا نعمضات بأدونك إلهي كوصينا يا نور في القلب قلبك والنور نور كقلبك ومحي وإنها قلبك أياكو فرمايا وإنها لغو أركا خالقا يا مخلوق فرق محا أدحيا الدوية قابا يا آخرة واسعة بدل فرق محا أدحيا طاعة إلهي يا معصية فرق محا أدحيا أشياء يا ماتريالك يا صلاة يا عملك وناكسن دفرن فرق محا أدحيا إسلام نمدا يا قبيالة فرق محا أدحيا ونورك لغو أركا ونور القلب ويا وضياء في الوجه وجهنا إفتين باك بحايا حسن البصري الله نحرسته عالم من علماء السلف هذه الأمة وتابعين أيو كمدها وجهيس أسمر اللون مدبك الناس وكلا أيو لها وجهيس إفتين باك بحجري سؤال بالويديو اللغو يري وجهاك إفتين باك بحا محاد سميسان نوشيك وحو يري ساعدها دتك أي هردان أيان إله إلا مناجودا بودانيكو ساعده وقت السحر وبالأسحار هم يستغفرون بإلى هيدي مؤمنين علامات اللقوء أماني وحا كمدا وقتك السحورتا ووقتك غفلت أي بدنتهي ووقتك الشيطان قفك ودوشي سكوير هذا هبين دير بعدوش هذا اسكجيف أيان كعاب ودا ساعدها بان كعاب لأن إلهي بان لمنا جودا مركاسا اللقويري هذا مجلس كاغن مجالستك لو كدوين هي ومحوكو كدوين هي اللقويري وحان أركينا مجلس كاغن مدحدا كula fadhiisanaysa awlaadii madaxdu ay dhaleen baa ku dhageysanaysa maalqabeennadii baa ku dhageysanaya sidee markaa ku dhacdaa lagu yidhi inay dadka shurafadu ay hadalkaaga iyo khayrkaaga jeclaadaan waa ninii sheegayaa buuri taana jawaab baan iga siinayaa waxay haysteen baan u daayay waxaan haystana way u baahdeen buu ku yidhi waxay haystaan maxay haystaan madaxdu adduunyadii bay haystaan maalqabeennadu warqadee lacag ay haystaan madaxdu mansab bay haystaan maalqabeennadu lacag bay haystaan farahaan uga qaaday waan u daayay anu xagga ilaahay baan u jeestay xagga diintaan u jeestay cilmiga ilaahay i baray ayaan ummadda intoon meel u fadhiistay shaqadaydu waxa weeyaan dadka iyo ilaahay baan isku xidhaa maadaamaan ilaahay ku kalsoonahay waxaan haystay u baahdeen markaa iyakii waayo ninka muslimka nicmadda uu haysto waa nicmad dadkoo dhan u baahan yihiin bal dad muslimiina maanta waxaa ka dhaadhacsan dad muslimiina waxaa ka dhaadhacsan ma taqaanaan gaalada lagama maarmi karo horumarkoogaan u baahannahay aqoontoodaan u baahannahay systemkoogaan u baahannahay la'aantood lama noolan karo waxaanad ogeyn waa run aqoon hadday leeyihiin aqoontooda ka soo baro laguma diidano system fiican haddaad ku aragto iyagoo ku dhaqmaya wixii diintaada islaamka aan waxba u dhibaynin ka soo qaado waayo nabigeennaa noo sheegay calayhi salaatu wassalaam nabigeennaa saxaabada ku yidhi war umuurtiina adduunyada ninka iga aqoon badan buu nebigu ku yidhi laakiin waxaanad ogayn adigu oo kaa maqan gaaladu sababtaaday ku nool yihiine adigu iyaga sababtooda kuma noolid
مسلم كسببتي سيد كسعوتا مسلم كأشهادنا والروح ذي عالمك بني آذنك الروح ذي سهداي كبحضو جلكني وميد ميدنا والإسكا آسا روح ذي عالمك كسعودا ما تغانا والإسلام إن الدين عند الله الإسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله في صحيح مسلم وحو نبيك كل شيء دبيل إنك إيمان دوت من قبل الشاب دبيل قبول لأن مرقاسا قف كستأو مؤمنة أما مسقال ذرة وحي إشو أركت وحي أغير أو خيرة أما إيمان قفك قلبيس وكجرب نبيك يري دبيشاس إنتي قشو سنكي أفك إنتي كقشو أيو أدي من يابو نبيك يري حتى متكين هدو بور على شيء وكجل لها دبيشا إنتي كدب قشو أي روح لك سوق من بو نبيك يري قف مؤمنة أدونك كوهر مايو دبيشا سابو من انت أدويدك وضع رفع عيسى فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق مع النبي يقولي دتك أدويدك وقشر بدن أي عالم كوسو هاري دونا كواسو وناقنا عن اسفرين حماهنا عن اسكريبين أرزاقتنا لنا عوال بلغدقي إبليس بس كوسو صوري دونا أو أورن دونا عنك ما يدي أجيب إيسان أو محانا أمر إيسان هنكو أجيبنا بيكو أورن أيام وحو أورن دونا أصنام تدبو عابدا كواسو أصنام تعابدا يبو النبي يقولي أو إلهي غيرك عابدا أو منكر كنا ميل والبقوية الله أيا ساعة قيامة كل عدون تابو رسولك يقولي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سعد رادد ولا ليال مسلم أقو عالم كان إنكم إنكم تاجين يهدتك لك حكومة تاجنو أذيك الروح دي عالم كان محامر كان لقربا إن العدو إسلام نمد هذا موجسا لقربا إن إسلام نمد كان نقول شيء أي كان نقول تمارك تاني كودغن ويا دغن كاغا ومدو أركيسا ودن كانت كل شيء إنكم خاصة تدكين أولكن جوجا يدتك قربها جوجا وعدك على سنة يبا صلاة تكون يسدتك قالوا ما أركان صومك صوم السنة ما أركان حجك بدن السنة ما أركان أمك أنت أنا لجلين وحابك قرن ما أركتان ممنوع قف عن مسلم هين ما بقى لك كربا زكاة دي السنة قالوا النصيب كمله سديت السنفي الزكاة اللصينة يو وعدتك مسلمين تلاقوا تلاقى لي مركا حديث صلاة هذه قالوا أين أركين صومك أجينا أون أي أركين حجك أجينا أين أركين dadka gaaladu markaa maxay arkayaan dhaqankaaga markaa arkayaan seed u dhaqmaysaa islaamnimada ilaahay ku siiyey ee uu kugu galladaystay ma kaa muuqataa adiga mise magacuun bay kaa tahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam maka markuu soo galay dhinac walba ciidan buu ka soo gashay 4,000 ayaa lagu qiyaasaa marka dadka magaalada maka ku noolaa quraysh لقيه النبي جنه الزوج سدين مرقاب النبي كويدي ماذا تظنون أني فاعل بكم حاد ما أنت إجمع لين سنة نقول سمين النبي يقول قريش وحي النبي قد يبقى يستن الأوجي هنا وقرنته بلال بيد بين عمر بيد بين أبو بكر بيد بين ونبي محمد بيد بين ما ديرين لحسن كهر زديت سنة كهر به القياستي ما حاد لين إنسان ما أنتنا نقول سمين هذا يقفل أنا إنسان هل مركلي أنت صداو يجن بيكون هذين وحن كاملين إننا خير وحنو أرجنا إننا تهي ولا الك يجي ونكسنا ولا الك يجي ونكسنا ونور لي مركب النبي كويري أنا قلنا ما أنت وحن استاجا موقف عجيبة موقف كي هلك النبي يوسف ولا له وقحوسية مركب ويمادين السقو وزير كمالية مصر أيو كويري لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ما أنت وحلي نجا أرجوسنا يا مجرتو إلهي دنبجينا هدافو كونا حريصك ونا حريص بدن وإلهي سيدي نبي يوسف ولا له ولا دغمي أيانا نقول ما أنت لا دغمي أقل الذين قلبوا النبي يقول آمن باتنوا النبت قليا برسولك كويلي ورأيت الناس يدخلون في دين الله ما ينقون أقلدكم ما ينقون رير انتي وبحين اي نبيك صف وسو غلين ايكو اشهادنا يا الله ومالنته
uu Khaalid yidhi maanta waa maalintii hilibka waa maalintii Quraysh la googoynayay ansaar saasay yidhaahdeen ansaar markaa buu nabigu yidhi may Cabbaas u sheeg ansaar maanta maalintii dadka la gowracayo la leynaya maaha ku dhammaanta waa maalintii naxariista wama arsalna naxariistaasaan u baahannahay maanta islaamnimadu inay naga noqoto dhaqan ujeeddo kale maaha waxa lainoogu yeedhay nimanka akhyaarta ee nagu dadaalay ee kulanka inii qabtay ee culimmadana meelo badan uga yeedhay ku soo casuumay inay nila hadlaan wallaahi ujeeddo kale ma leh waxay leeyihiin keliya siday diintani ay nolosheenna u timaadaa bas marka waxaan nagula dardaarmayaa nafteedana kula dardaarmaya inaan dadaalkaas ziyaadino ducada badino diintu ay naga noqoto maaragtaan ku dhaqan guryaheenna ubadkeenna gabdhaheenna diinta ku ababino insha Allah dhahada hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi